Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal, maanta wixii laga bilaabo waxaan sameyn doonaa Facebook live aynu dadka halkan aynu wararka ugu baahino aynu kala hadli doono warar kala duwan halkaasi aan si live ugu soo baahin doono. Wararka maanta aan idin hayno waxaa kamid ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa sida la sheegayo haatan waxa ay leeyihiin kulan gaar ah oo horudhac u ah kulanka ay yeelan doonaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaare Khayre iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo halkaasi ku sugan. sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa xalay xilli dambe waxa uu kulan hordhaca la yeeshay madaxweynaha maamulka Jubbaland andhahe maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. kulankaasi waxa ay madaxtooyada Jubbaland sheegtay inuu ahaa kulan hordhac ah oo ay yeesheen madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha maamul goboleedkaasi ee Jubbaland Axmed Islaan Axmed Madoobe. sidoo kale saacadaha soo socda waxaa la rajeynayaa inuu kulankaasi kusoo biro gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Cumar Filish oo ka imaan doona magaalada Muqdisho, kulankaasina ka qaybgeli doona. kulankan ay yeelanayaan madaxda dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu wadaa in uu furmo maalinta biri ah. maantana waxaa jira kulan hordhaca ay yeelanayaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada. dadka Soomaaliyeed ayaa kulamadaas ay yeelanayaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada indhaha ku haya, iyagoo rajeynaya in kulankaasi uu kasoo baxo masiir ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed wax ool u noqda. wararka kale waxaa kamid ah cudurka coronavirus ee dunida kusii baahaya ayaa haatan waxa uu sii galayaa ama tiradiisu ay kor u dhaaftay 14 milyan oo qof inuu gaaray cudurkaasi. dad aad u tiro badanna cudurkaasi way u dhinteen. sidoo kale qodobada waxaad ku maqli doontaan roobab mahigaana oo ka da-ay koonfurta Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. Afgooye ayaa saameyn ba-an yeeshay, dad ayaa guryahoodii ka barakacay sida lasoo warinayo oo halkaasi roobab ay ku heleen. roobabka xagaayaha ayaa inta badan waxa ay ka da-aan koonfurta Soomaaliya xilliga xagaaga. bariga Soomaaliyana waxaa ka dhaca xagaa ama dabayl ayaa inta badan ka dhacda. wararka kale oo aynu helayno waxa ay sheegayaan in boqor Salmaan boqorka dalka Sacuudiga la dhigay isbitaal. boqorkaas ayaa la sheegay in kaadi haysta laga hayo ama uu xanuun daran la liito. Sacuudiga ayaynu ku gudajinay sanadkan. Sacuudiga dad tiradooda lagu sheegay 7 milyan oo qof oo ku nool gudaha dalka Sacuudiga ayaa lagu wadaa in ay sanadkan umrtaan andhahe ay xajiyaan iyagoo laga cabsi qabo in cudurka coronavirus uu dunidan aynu ku noolnahay ku sii baaho. dadkaas ayaa lagu sheegay in la sameyn doono 7 beri oo karantiila la gelin doono markii ay dhamaystaan umrada andhahe xajka markii ay dhamaystaan. wararka kale aynu helina ayaa waxa ay sheegayaan in deegaanada Puntland maalmihii u dambeeyay nidaamka asxaabta faraha badan ee Puntland haatan laga waxeeyay ayaa waxa ay qabsanayeen kulamo ama shirweynayaal ay ururadaasi sameysanayaan. ururka ka oo dawladdu ay leedahay ayaa asna maalinkii shalay la soo xiray shirweynihiisii iyadoo halkaas lagu doortay hogaamiyaashii hogaamin lahaa ururkaasi. madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa ururkaasi looga dhigay madax ama hogaamiye ururkaasi uu leeyahay. ururada kale ee mideeye ayaa isaguna shirweyne qabsaday. ururka ka ayaa isaguna waxa uu qabsaday shirweyne. ururka Bakaal, ururka Cadaalad iyo Sinaan, ururo tirada ka batay ayaa halkaasi waxa ay ku qabsadeen shirar. waad ku mahadsantihiin daawashada wararka aynu halkan kusoo baahino. haatan wixii laga bilaabo maalin kasta waxaynu isku daynaa inaan halkan qodobadii Soomaalida ugu door corona halkan ku baahino si aad idinkuna nagula socotaan
waad ku mahadsantihiin markasta daawashada muuqaaladeena iyo macluumaadka halkan aan ku baahino waad mahadsantihiin.